madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne ku magacaabay xubnaha cusub ee komishanka xuquuqul insaanka qaranka waxaana uu dhignayd wareegtada madaxweynuhu sidan markuu arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Somaliland markuu arkay xeerka komishanka xuquuqul aadamaha ee xeer lambar 9/2010 markuu helay qoraalka gudida xulista xubnaha komishanka xuquuqul aadamaha markuu tixgeliyay ahmiyadda komishanka xuquuqul aadamuhu u leeyahay dhismaha sumcadda iyo horumarka qaranka markuu sameeyay la tashi madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxa uu go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta uu magacaabo xubnaha hoos ku xusan inay noqdaan xubnaha komishanka xuquuqul insaanka qaranka كو محمد بارود علي حبن لبا محمد حسن علي حبن صدح مصطفى علي عثمان حبن أفر باشا محمود فارح حبن شان محمد شامع إبراهيم حبن ليه عبد الرحمن عثمان عبد الله حبن تضرب موسى شامع إيجا حبن xubnahan oo sida sharcigu dhigaya ay soo xuleen gudida xulista xubnaha komishanka xuquuqul insaanka qaranka oo madaxweynaha qaranka u soo gudbiyay 14 xubnood si uu uga soo baxay madaxweynuhu 7 xubnood kuna magacaabay wareegta madaxweyne sida daraadeedna 7 xubnood ee kalena u noqdaan kayde xubnaha madaxweynuhu ku magacaabay wareegtada Axmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka qasriga madaxtooyada Somaliland ee Hargeysa.